Soomaaliya inay sii kala fakata maana inay israacdo ayaa muhiim ah marka waxaad moodaa xoogaa meeshaas kala tag iyo isu tanaasul la'aano inay ka muuqato Axmedna waxa u furan shacabka inuu u turo dad lama xukumi karo dad aan ku rabina lama xukumi karo waana nin Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay labadaba tanaasulaad ha muujiyaano dagaalna waxba ma taro dawladda waxaan kula taliyaa maadaama ay dawlad Soomaaliyeed tahay dalka iyo dadkana ay u dhaaratay in ay ciidamada ay meesha ay geysay aysan dagaal gelinin oo aysan dad Soomaaliyeed aysan dagaal ku kicin inuu dawladda wada hadal la galo wada tashi u soo noqdo waa nin Soomaaliya dadku waa dad Soomaaliyeed dalkuna waa dal Soomaaliyeed Soomaaliyana kalaba maaranto Axmed intaasaan kula taliyaa soo marka hore waa dhowahay sida la socota Jubbaland waxa shalay marka lagu doortay inuu madaxweyne yahay Axmed Madoobe oo doorasho asiga u dadban tahay u dhigtay dawladda Soomaaliya arintaasina way ka hadashay ciidamo dhowr ay geysay deegaanada Jubbaland haatan maxay tahay talaabada dawladda u gudboon Axmed Madoobe maxay tahay fariinta u diray labada fariiran u diraa Axmed Madoobe horta doorashadiisa waxay ahayd inuu doorashada u kaadsado oo dawladda hadii la koreeyay la meel dhigo oo wax la dheel gareeyo Soomaaliya inay sii kala fakata maana inay israacdo ayaa muhiim ah marka waxaad moodaa xoogaa meeshaas kala tag iyo isu tanaasul la'aano inay ka muuqato marka Axmed waxaan kula taliyaa inuu dawladda wada hadal la galo wada tashi u soo noqdo waa nin Soomaaliya dadku waa dad Soomaaliyeed dalkuna waa dal Soomaaliyeed Soomaaliyana kalaba maaranto Axmed intaasaan kula taliyaa dawladda waxaan kula taliyaa maadaama ay dawlad Soomaaliyeed tahay dalka iyo dadkana ay u dhaaratay in ay ciidamada ay meesha ay geysay aysan dagaal gelinin oo aysan dad Soomaaliyeed aysan dagaal ku kicin dad hadda degan oo masaakiin oo shacaba inaysan dagaal ku kicin hadii kismaayo dagaal ka dhaca Kismaayo Axmed Madoobe kaliya degan shacaba degan shacabkuna way barakacayaan inaan marka shacabkana la barakicin oo la soo dhimriyo Axmedna wada hadal oo dawladda la galo dawladuna ay u kaadiso Axmed ka ruuxiisa wada hadal la gasho oo Axmed uu soo noqo gogashi wada hadalka miiska wada hadal ku soo laabatira intaasaan kula taliyaa waana mahadsantiin wabillahi tawfiiq hadii labaduba wada hadal laga waayo sidee arinta noqon kartaa maxaana dhici kara hadii wada hadal laga waayo dawladda waxa u furan inay ayadu tanaasul samayso iyadoo dadka shacabka Soomaaliyeed u turaysa oo aysan dagaal iyo maxay ahayd ciidamada daabulud aysan geynin dawladda intaasa u furan Axmedna waxa u furan shacabka inuu u turo dad lama xukumi karo dad aan ku rabina lama xukumi karo waana nin Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay labadaba tanaasulaad ha muujiyaano dagaalna waxba ma taro waxa wax tara nabad iyo wanaag iyo wada tashi iyo xasilooniya wax tara marka waxaan leeyahay yaan qalqal dadka la gelinin labaduba miiska wada hadalka isugu yimaadiino ayagoo maxay tahay u turaaya dadka shacabka Soomaaliyeed oo danta u turaaya oo dana gaar ah oo shakhsi aan la fiirihaynin intaasaan labadaba kula taliyaa oo maadsantiin